wafdiga wasiirada warfaafinta ganacsiga xildhibaan iyo la taliye madaxweyne oo dhawaanahan ba ku sugnaa magaalada Laascanood ayaa maanta kormeer ku tagay jiida hore ee deegaanka Gambare. wafdigan oo hogaaminayay wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta ee Somaliland Axmed Cabdi Xabsade ayaa saaka subaxnimadii hore ku jirmaaday deegaanka Gambare iyo Cadaada oo ay ku sugan yihiin ciidamada Somaliland iyadoo shalay halkaasi dagaal culus ku dhaxmaray ciidamada Somaliland, Puntland iyo SSC oo garab ah. wasiirka warfaafinta ayaa kadib kormeerkii uu ku tagay deegaanadaasi warbaahinta uga waramay xaaladaha deegaanadaasi ay maanta ku sugan yihiin iyo dagaalkii shalay halkaasi ka dhacay. wuxuuna wasiirku tibaaxay in ciidankoodu ay soo weerareen Puntland iyo SSC oo wada socda. wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in khasaaraha dhabta ah ee soo gaadhay dhankooda uu yahay dhaawacyo kala duwan oo qaarkood uu ku sheegay inay yihiin askar gaari ka dhacday. maanta waxaanu kormeer ku tagnay safar ku saabsan shaqo furunta hore ee ciidamada magaalada la yiraahdo Gambare halkaasoo ciidamadu ay joogeen xalayna ay ku soo noqdeen dagaalkii intii soo gardaraystay ay iska celiyeen. ciidamadu aad iyo aad bay u shaqeeyeen waa fiican yihiin moralkooduna aad iyo aad buu u sarreeyey shoodana aad iyo aad bay ugu faraxsanaayeen inay guuteen. annaguna waxaanu ku hambalyeynay inay hawshooda qabsadeen. sideedabana maanta looma baahna wax dagaal ah waxba tali maayo in safkarad iyo wada hadal iyo wax walba haysto yaa loo baahan yahay. ciidamada waxaanu kula talinay haddaan la idin maagin idinku cidna ha maagina waxna ha samaynina halkiina iska joogo. waxaan ugu maqalaa wasiir in dhanka Puntland ay sheegeen wararka in ciidanka Somaliland ku idinku maxaad ka waraysaa? waxba jireen iyaga soo qaaday iyaga yibi meesha iyaga dagaalka soo qaaday dabeetana waa la celiyay. ma jireen ciidamo kale iyagu ku jira oo qolyaha SSC iyo qolyaha kale oo dagaalka ku jira way wada socdeen. SSC iyo Puntland labaduba way wada socdeen. markii hore SSC bay iska soo horeysiyeen difaaca dambe waxaa ku jiray Puntland oo dagaal soo gashay markii aanu iska celinay ciidanka SSC. dhowr qof waa dhaawac oo ciidanka iyaga ah oo wax baabuur ka dhacay iyo wax gaareen laakiin ma badna ilaa 5-6 qof yaa la sheegaya. maxaabiis dhowr iyo toban maxbuus baa la hayaa. isku soo wada duuboo deegaanadii shalay dagaalku ka dhacay ayaa maanta degan iyadoo laga dareemayo xasilooni. warar aanu ka helayno dadka deegaankaasi ku nool ayaa sheegaya in laga barakacay tuulooyinka ku tirsan laamiga Higlada iyo Gambare oo inta u dhaxaysa ay ka jirto xiisado colaadeed. Cabdiraxmaan Ali Ducaale, Home Cable TV, Laascanood.